عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Damasha Media. asxaabta Damasha Media dhamaantiin waa salaamantiin meel kastoo joogtiin dunida darafeeda. haddaba inta nagu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada, intii hore noola joogtina waad mahadsantiin. haddaba halkan qasayr ayaa nagu hayaa, qisadaas oo ku dhacday walaasheen Asma yar oo ku nool magaalada Gabiley. haddaba sida tan ayay qisada ku bilaabmaysaa. Asma iyo Maxamed si lama filaan ah ayay isku barteen. ma oran karno kulankani waxa uu ahaa mid la sii qorsheeyay, balse waxaan dhihi karnaa waxa uu ahaa mid alla qoray. haddaba Asma yar waxay ahayd gabadh daacad ah, kalsooni leh, jacaylka aaminsan. balse maxaa dhacay? hore ayaa loo soo dhaawacay, way qalbi jabtay marka ay Maxamed ka dareentay hadallo jacayl ah. way iska oysay maxaa yeelay hore usoo dhaawacan. haddaba saatan ayaa jacaylkoodu ku bilaabmay. haddaba jacaylkoodu ma ahayn mid degdeg ah, wuxuu ku bilowday dhageysi, isfahan iyo kalsooni. Asma waxay Maxamed la wadaagtay xanuunadii ay hore usoo martay iyo cabsida ay ka qabtay jacaylka, balse Maxamed waa dhageystay. haddaba maalmo kadib Maxamed ayaa qirtay qalbigiisa waxa ku jira, waxaana uu ku dhahay, qalbigaygu wuxuu isbaray inaan ku jeclahay ka hor inta aanan erey ku sheegin. waxa dhacday waxay isjeclaadaan muddo dheer kadib. adugu waa iskhilaafeen labadii qof. kadib markay iskhilaafeen waxaa dhacday in ay haddana ka heshiiyaan. khilaafkii kadib ka heshiiyaan. adugu waxa uu noqday dee taqaanaano laba qof oo isjecel, khilaafkoogu ma yara. kadib haddaba waxaa dhacday labada qof khilaafkooguba aad iyo aad u batay. haddaba Asma yar ayaa go-aan soo gaadhay, misana go-aan soo dejisay. kadib haddaba waxaan kasoo noqonay Maxamed aan soo noqonay. Maxamed waxa uu ahaa wiil ardaya, misana wax camal ahayn, shaqan ahayn, laakiin ardaya. haddaba inantii Asma waxay ballamisay Maxamed habeenada ka mid ah. haddaba markii ay kulmeen waxay go-aan kusoo gaadhay, intayna horta waxay go-aan kusoo gaadhay u sheegin, ayaa haddana xaafadii buu kusoo noqotay oo ku dhahday, Maxamed isiisu waan soo noqonaya. kadib waa ay soo noqotay iyadoo alaabteeda soo qaadatay, dharkeeda wixii soo qaadatay. maxay ku tiri? waxay ku tiri, Maxamed go-aan ayaa soo gaadhay, go-aankaasoo ah inaan maaragtay isla baxsano, maadaamaana wax xamala kugu ogeyn, misana waxa shaqaanad haynin. kadib Maxamed waa ka diiday arrinkaa, maxaa yeelay wuxuu ahaa wiil rajadiisu ay tahay inuu si qurux badan misana sharaf leh uga soo doonto Asma yar xaafadooda. balse Asma waxay tiri, waan ogahay Maxamed inuu arrinkani arrin qaldan yahay, misana fikirkani qaldan yahay, ee waxaan rabaa maadaama khilaafkeeni batay, bal inuu khilaafku sidan ku yaraado inaan isla baxsano. kadib allah inoo hayata wixii arsaaqa. Maxamed waa ka diiday, si kasta wuu ka diiday, wax kasta way ku tiri waa ka diiday. kadib Maxamed bartii waa iskaga tegay. kadib markuu halkii isaga tegay waxa uu doonay Maxamed markuu arkay Asma oo maanta madaragtay u ooyeysa oo go-aanka ku dhigsan. Maxamed waa ka diiday, uu is adkeeyey, xaafadii wuu iska tegay. markuu xaafadii tegay kadib waxa uu go'aansaday maadaama ay saa ku fikirayso oo ay hadalladaas ka soo yeedhayaan inuu maaragtay baloog iska saaro. maxaa dhacay? baloog markii iska saaray kadib maantaas minanka way raadisay iyadoo isma lahayn dee maanta khilaafkan iyo waxan baa kaa yaraan mooyaane, isma lahayn marnaba Maxamed baa soo fudud ku waaysa. kadib waxaa dhacday inanka way raadisay way weyday. maalmo kadib ayaa inankii Maxamed haa la soo hadlay. kadib markuu la soo hadlay wuxuu ku uri, Asma iska kay ilow. markaas way yaabtay Asma, maxaa dhacay? buu ku tiri, maxaa maanta arrinkii aan kala hadlay baad isku bedeshay oo laga tegaysa aniga? iska kay ilow buu ku uri, maxaa yeelay? maxaa dhacay? aduu inantii halkii warwar iyo walaaciba ku muujisay maadaama qofta hore soo dhaawacmahayd oo laakiin dana kalsoonidii Maxamed ka dhex aragtay istirida. qofkana maanta kalsoonida dib ku soo celin kara, misana jacaylku jeclaysiin kara mar labaad oo dee maanta rajadaysa ka wadagtay. Maxamed wuu qaadan weyday markuu yidhi iska kaylow. ereygaasna waa erey xanuun aad iyo aad u xanuun badan. haddaba sideena halkan ayay ku eg tahay part 2 socda insha Allah. wanaayo kulati dambe